ninka maanta raba marka inuu manhajka nabiga sidii u raaco saddex arrimood waa inuu la yimaadaa waa iga dardaaran marka koowaad magac kii ilaahay uu bixiye aan ahayn yuusan u tacasubin ururku makhaayada la samaysta wey kii ilaahay bixiye huwa samaakum almuslimiina min qabl almuslim inaad tahay marka koowaad marka labaad ahlu tawxiid inaad tahay ilaahay cid aan ahayn in la baryo la magan galo loo gowraco weli ha ahaado ama nebi ama malag inaadan ogolayn oo aad shirki u taqaan waxa ku dhaqmayaan aad mushrikiin u taqaan inaad shirki u taqaan asay walaalkaa yahay waa iska nasiib darrada waa murji'ada nasiibada murji'ada waa shirki buu ku jiraa waana muslim isma qaadanayso waa beenta hadda culimada irjaaga ee wadanka ku hayaan nagalama doodi karaan arrinta waa marti qaadna wada ogtihiin in lagu caayo propaganda la raadiyaa laga jecel yahay inta lagula doodo la garbaxo munaadara sharciya la galo cay iyo propagandana meel lama gaadho weligeedba ambiyada iyo saalixiintu waa la caayay in la cayta maxamed tarta marka ninkan wuxuu muslim yahay ku yahay ii sheeg baan ku leeyahay anigu jiilaani buu baryaaye kan wuxuu muslim ku yahay ii sheeg baan ku leeyahay kitaabka ilaahay ma ogola dastuur buu ku dhaqmaaye maxaad i dhihi wax kale ku dhahan male in lagu caayo un mooye waa midka labaad marka midda saddexaad waa inaad rumaysan tahay inuusan xaakim musharica jirin ilaahay mooye sayidkana xukuma oo xaakimkeenna waa inuu ilaahay yahay koow waa inaad cibaadada u khaalis yeesho baryada iyo magangalka iyo caqiidadana nadiif tahay yani alcaqiidatu awalan laba ilaahay inaad xaakimka keliya u taqaan saddex waa inaadan urur iyo xisbi aadan u tacasubin inaad u tacasubtay islaam qofkii islaamka ku toosan walaalayso qofkan ku toosnayna beri ka noqo taasaad ku badbaadi biidni illaahi ilaahay hortiisa intaan iri waa garashadeeda waxaan asiibayna ilaahay baa i waafajiyey waxaan khaldayna nafteyda gaar ku tahay ilaahay beri buu ka yahay wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam